Etoobiyana waxay doonaysaa taariikhdii Soomaaliya lahayd inay baabi'iso 26 Juun inay 1 Luuliyaba inay baabi'iso heshiiskaasi mid soconaya maaha waana mid gacan ku rimisa dadka Soomaaliya dadka gobolada waqooyi joogana raalli kama aha badooda Muuse Biixi inuu iibsado waynu ka aragna Itoobiya sida Ilaahay looga baqo ayay inooga baqdaa hal diyaar garoobo jihada loo diyaar garoobo janna waxaynu ugu dhowday Itoobiya in laga difaaco dhulkeena amuudeena iyo badeena waxaan u arkaa horta waa xaaraan heshiiskaasi dalka madaxweynaha waxa ka loo dhaariyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dalkiisa dadkana isaga nooga mas'uul anagu waxaan ka mid ahay odayaasha dhaqanka ka soo jeeda gobolada waqooyi raalli kama nihin heshiiskaasina mid hirgelaya maaha Soomaaliya gobolada waqooyi ciidamada jooga waa laga ciidan badan yahay waa laga hub badan yahay waa laga dawlad badan yahay saaxiib badan yahay heshiiskaasi mid soconaya maaha waana mid gacan ku rimisa Etoobiyana waxay doonaysaa taariikhdii Soomaaliya lahayd inay baabi'iso 26 Juun inay 1 Luuliyaba inay baabi'iso waxay ku soo beegaysaa heshiiskii inay hirgeliso 26 Juun taasina mid aan yeelayna maaha inuu dhici doono anigu ma aaminsani waa wax min awaala waayo Soomaaliland waxay leedahay golayaal dhaqan golayaal sharci dejineed midna lama marin marka waa heshiis ina bixiyo abi ka dhaxeeya wax soconayana maaha wax Soomaaliya raalli ka tahayna maaha wax weeyay dawladda Soomaaliya raalli ka tahay maaha waxa midowga Yurub Afrikana raalli ka yahay maaha waa wax Itoobiya Muuse Biixi abi u dhaxeeya taasina mid Soomaaliya ogolaanaysa maaha waxaanu ku xignaa dagaal inaan dalkeena iyo diinteena iyo dhaqankeena difaacano Itoobiya waxa weeyay koow diin la'aan khamri xashiishad habla yaryar oo eeris qaba oo Soomaali ku soo deysay intaasoo dhibaato bay hore inoogu haysay iminkana waxay doonaysaa bullaxaar inay qaadato bullaxaar iyo ilaa Etoobiyana 150 kilomitir baa u dhaxeeya 150 ka banootana qaarna bari yihiin ilaa Sayla iyo Luqaya yihiin qaarna yihiin waxa weeyay dhul waxay doonayaan inay dhulka Itoobiya ku darsadaan oo xasalig ciidana ka sameystaan badana ay qabsadaan badana waa ninka xoog raana hadduu ku qabsado cid ka kicinaysaaba ma jirto waa dagaal 64 bayna ku soo qaadeen midowga Afrika ay dib uga baxo wayna ka baxeen oo dad baan ku kala dhintay 7 baad ugeeno dagaalada ka kala dhacay intii boqor soo bariyay intii ra'iisul wasaare soo marayba bad bay doonayeen iyo dhul Soomaaliya leedahay waxa ku filaan waayay kilalkii shanaad ay haysteen marka maadaama faraha looga qaaday kilalkii shanaad waxay damacsan yihiin badii iyo dhulkii Soomaaliya had baaqigeena inay ku darsadaan waxa la waa xaaraan waan ka soo horjeednaa madaxweynaha Soomaaliya iyo labada golaha waxa weey golaha xildhibaanada iyo golaha saraba waxaan leeyahay talaabo sharciga waafaqsan hal la qaado haday ciidan tahay iyo haday diblomaasiyad tahay aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi oo hawsha dadaal badan ku sameeyay imkana dalka dibadiisa ku maqan oo ninkaasi nin aad iyo aad aqoon-yahan karti leh awood leh shaqo badan waxaan leeyahay taariikhda ku xusu doonta Axmed Macalin Fiqi iyo madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa la gudbeen in Itoobiya way badhaadhay dagaal lagala hortago in Itoobiya gacmaha la isku qabsado dadka Soomaaliya dadka gobolada waqooyi joogana raalli kama aha badooda Muuse Biixi inuu iibsado iyo dawladda imika 3 bilood u hadhay inay iibiso raalli kama aha dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan bayna gacmaha isku qabsadaan in dagaal lagu qaado Itoobiya in Itoobiya lagala diriro badeena iyo dhulkeena in laga kiciyo waynu ka aragna Itoobiya sida Ilaahay looga baqo ayay inooga baqdaa waligood 150 milyan ha noqdo Itoobiya oo leenugu heliyo barigii 77 dawladda shishiye Ruush baa inooga heliyay inta sababa la gaari lahaa maantana waynu ka dabadanahay waynu ka dhalinyaro badanahay waynu ka ciidan badanahay waynu ka hub badanahay waynu ka geysanahay waxaan leenahay Soomaali hal diyaar garoobo jihada loo diyaar garoobo janna waxaynu ugu dhowday Itoobiya in laga difaaco dhulkeena amuudeena iyo badeena